ogeysiis. السلام عليكم أصحاب تقاليق أي جلس عتم مقالة نيروبي دلك كينيا وحن شعلهاي كنا فرحسناهاي إن ندلو ذاقو إن نيروبي وصوص عضو سديدية طبعاً كاي إلا لباتن كبش أكتوبر waxaa la ogeysiinayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya inuu marti inoo yahay Maxamed Cumar oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah aadna u dhiirigeliya dhalinyarada iyo guud ahaan dadka ay taladu ka wareertay oo ah talasiye ama dhiirigeliye nafsadeed wuxuu program qiimo iyo milga sareeya ku qabanaya dalkani Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya wuxuuna qayb ka yahay barnaamijka loo asteeyay toddobaadka dhaqanka oo Jaamac Cumar Ciise ay qabanayso wuxuu aad ugu talax tagay in la taliyo dadka si fududna u tuso si ay danahooda u qabsan karaan waa dhiirigeliye nafsadeed wuxuu si gaar ah ula hadlaa dhalinyarada iyo guud ahaan intii taladu ay ka cakiran tahay wuxuu show milga iyo maamuus sareeya oo isla dhiirigelintaas ku qaban doona magaalada Nairobi. السلام عليكم أصحاب تقاليق أي جلس عتم مقالة نيروبي دلك كينيا وحن شعلهاي كنا فرحسناهاي إن ندلو ذاقو إن نيروبي وصوص عضو سديدية طبعاً كاي إلا لباتن كبش أكتوبر قيباً كاهاي تضوات كدقن كاي Somali Heritage Week halkaas waxaan ka sameyn doonaa barnaamij aad u xiiso badan aadna aad uga heli doontaan waxaan jeclahay inaan is aragno si aan isku aragno oo nadu seegin maalinta dhiirigelinta iyo xamaasadda leh inaad sii qabsataan booskiina tigtkiina sii qaadataan I very much look forward to seeing you all wayno Kenya National Theatre iyo 18 ilaa 20 bisha October. Thank you very much and I look forward to seeing you all. Reer Nairobi waa markiini tigidhadu aysan ka dhamaan kuna soo dhawow gacmo furan waxaadna kala xiriiri kartaa telefoonada ku qoran shaashada